afayeenka dowladda Hirshabelle Daawud Xaaji Ciro ayaa warbaahinta uga warramay kulan aan caadi ahayn oo madaxda Hirshabelle maanta ay tacsi ugu dirayeen dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir halkaas oo ay ku geeriyoodeen gudoomiyaasha ilaa 3 degmo oo ku yaala gobolka Banaadir iyo shaqaale dawladeed kulanka kadib afayeenka dowladda Hirshabelle oo ku hadlayay afka madaxda ayaa tacsida la wadaagay warbaahinta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ana ku hadlaya magacayga magaca madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle magaca madaxweyne ku xogeenka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo guud ahaan shacabka Hirshabelle waxaan tacsi guud u diraynaa maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka reer Muqdisho falkii foosho xumaa ee gooxaha argagixisadu shalay ay ka geysteen aqalka dawladda hoose ee Muqdisho halkaas oo ay ku dhinteen dad mas'uuliyiin ah oo qaali ah agteena qiimo badan ku lahaa sidoo kalena uu dhaawac uu ka soo gaaray gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo mas'uuliyiin kale oo maamulka gobolka Banaadir kamid ah xaqiiqatan falka meesha ka dhacay saakay dowlad goboleedka Hirshabelle mas'uuliyiintooda ugu sareysa golaha wasiirada waxay isugu yimaadeen shir ay ku muujinayaan falka meeshaasi ka dhacay inuu ka xun yahay sida ay ugu xun yihiin xaqiiqatan waxaan runtii kulanka inta uu socday aan ku soo bandhignay sida dowlad goboleedka Hirshabelle maamulka iyo shacabkaba ay ugu xun yihiin shacabka reer Banaadir falkii dhibaatada badneed ee shalay soo gaartay xaqiiqatan ilaahay ha u naxariisto ayaan leenahay dadka mas'uuliyiinta meesha ku dhinteen sida anaga hadda warbixinta nagula siiyay waxa meeshaasi ku dhintay gudoomiyihii degmada Cabdilcasiis gudoomiyihii degmada Shangaani gudoomiyihii degmada Waabari sidoo kale meeshaasi waxa ku dhintay agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale waxa ku dhintay agaasimihii waaxda nadaafadda maamulka gobolka Banaadir horena u soo noqday afayeenkii maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane oo runtiina ahaa saaxiib Hirshabelle ay lahayd runtii ahaa garab runtii naga baxay naga warhayn jiray noo imaan jiray na soo booqan jiray aan iswaaci jirnay ilaahay ha u naxariisto sidoo kale waxaan inta kulanka saaka uu socday aan ugu duceynay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu caafimaad uu siiyo maayarka caasimadda Muqdisho gudoomiye injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo dhaawac uu soo gaaray laguna dabiibayo isbitaalada magaalada Muqdisho la rajeynayna in dalka dibadiisa loo qaado maanta insha Allah ilaahay waxaan ugu barin inuu caafimaad siiyo in dhaawaciisa ilaahay mataqaana uusan ka dhigin mid culus waana u duceynay kulanka inta uu socday Cabdi Shakuur Shaashasiine Jowhar